qaar ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan heshiis ay dhowaan ay sheegeen inay wada gaadheen mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo shirkadaha isgaarsiinta ee dalka taasoo la sheegay in lacagaha saadka iyo idahab lagu bedeli doono lacagta shilinka Somaliland ugu horreyn gudoomiyaha gudoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Umar Maxamed Umar Sanweyne oo ugu horreyn isagoo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka aad iyo aad baan soo dhaweynay xaqiiqatan arinta iyada ah sababtu ay tahay deegaanka Itoobiya aanu ka nimi meel aad bir dollar ku arkaysaa ma jirto waxa weeye supermarketyada waaweyn bir bayna weydiinayaan hodolada waaweyn iyo baananka iyo sarflayaashu ma ka heli kartaa dollar imaaraadka iyo tagadhulka ma garanaysaa horumarsan xaqiiqatan waa daalarkaas lagu iibsanaya talyaaniga tagay anigoo dollar sita waxa ka cuni kari waaya restaurantii meesha ku yilay marka waxa way wadan waliba uu isticmaalaya sidii wasiirku sheegtay wasiir Samsam wadan waliba currency-giisa ama lacagtiisa isticmaala marka waxa weeyaan waa talaabo fiican Itoobiya wada aragtay Imaaraadka wada aragtay Kenya wada aragtay meel adduunka la weydiiyay lacagtii uu lahaa lacag aan ahayn oo Soomaaliland ahayn ma jirto taana waan ku hambalyeynaa wasaaradda iyo baankaba waxaan aaminsanahay inay dadku haddii ay kalsooni helaan lacagta Soomaaliland aaminaadeedii lagu soo celiyo arintan waa la qabnaa in wada maaliyadda banku inay ka sameeyaan annagu guddiga maaliyadda ku jirnaa waxaan soo jeedinay in saadka laga dhigo Somaliland shilling imika wuxuu noqday wadankiiba in dollar lagu isticmaalo marka dee dollarka ma yihiin dad baale inaku Somaliland shilling ayaynu isticmaalanaa oo dadka masaakiinta ee yar ee waxbaan haysanaa taas oo dana runtii waxa weeye qaran baynu nahay caalamka hor taagan yahay oo wax walba u dhan yihiin waxaanu samaysanay lacag inaan lacagteena qiimo yeelato waynu qiimo u yeelaa horta waa waajib qaran weey marka arinta waxaan u arkaa si kasta oo sicir bararkan dollarka lagu baajin karo shilin Somaliland kuna uu qiimo u yeelan karo talaabo kasta in la qaado arintaasi lacagteena meesha ka saartay taasina waxay keentay maxaan ku dhahay sicir barar way lacagteena shilin Somaliland ma aha dollar waa in lacagteena qiimo u yeelay lacagteena aan isticmaalaa markaas ay lacagteena qiimo yeelanaysa inta aynu lacag qalaad ku dhaqmano nolosheena iyo maxaan ku dhahday waxaynu dhan saldhigi maayo ka dadku waxay qiimeeyaan lacagtooda ma ogtahay lacag aan lahayn de faa'iido ay u keenaysaa ma jirto haddana waad arkaysaa inaga sixir bararkii dhibaatada waxa soo dhan waxa koos gareynaya waxa weeye lacagtan iyadoo la ixtiraamayo de oo inagu businesskeenu uu yahay xor sida xeerarkeena